Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran kanaalka Darulkhayr Media iyo Naciim Studio. Halkan maanta waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeeni taxanaha ah ee Ramadaanka. Qisada maantana waxay ku bilaaban doontaa sida tan. Beri baa gabar waxa ay xaramku ku dhex aragtay haweeney qiyaastii 70 sanadood ku dhow oo indhaheedu ilmo aan kala joogsi lahayn ay ka socdaan. Dabadeed gabadhii ayaa haweeneydii weydiisay, maxaa ku helay hooyo oo sidan aad u ooyeysaa? Haweeneydii waxa ay ku jawaabtay, waxaa sidan iga ilmeynaysiinaya haddii aan kaaga waramo. Waxaa jirta berigii aan gabar aan qaangaar noqday ayaa waxaan isguursanay nin, waxaanan isqabnay oo aan wada nooleen muddo 8 sanadood ah. Waqtigaasna wax caruur ah iskuma aanan dhalin. Kadibna ninkaygii wuxuu guursaday xaas kale oo Alle uu kala siiyay wiil, waxaana arrinta ay igu noqotay qalbi jab iyo murugo. Muddo 2 sanadood ah markii uu seygayga isqabeen xaaskiisa kale ayaa waxaa maalin dhacday in ay safar u baxeen, waxaana la iga tagay wiilkii yaraa oo 2 jir ah. Markii ay cabbaar sii maqnaayeen ayaan waxaan go'aansaday in wiilka yar aan si xun u ciqaabo. Dabadeed inta aan falka guracan ku dhaqaaqin ayaa waxaa soo dhacay telefoon, waxaana la ii sheegay in ninkaygii iyo xaaska oo ila qabay ay shil gaari galeen, labadooduna ay geeriyoodeen. Kadibna waxaan sameeyay in aan wiilka yar silciyo, waana aan garaacay. waan garaacay ilaa ku miir daboolme. Muddo yar kadib wiilkii ayaa soo naxay isagoo leh, maamo caano isii. Mise mar labaad ayaan si xun u garaacay, haddaba qolkiis ayaan ku soo xiray. Waxa ay qabatay hurdo ay qabatay, kadibna waan jiiftay. Hurdadii ayaan ku arkay riyo xun ayaan ku arkay. Waxaan ku arkay gacmahayga oo naar laga sameeyay, lugahayga oo bud laga dhigay. Runtii waan naxay, hurdada ayaan ka soo booday. Markaan ka soo booday ayaan dhabanahayda fiiriyay, wax ila jooga ma laha. Waxaan maqlay cod yar, wiilkii oo leeyahay, maamo caano isii. Aminka ayaan booday, wiilka caano aan siiyay, aan u qabeeyay, aan u labisay. Runtii riyada aan arkay waan la yaabay. Waxaan guursaday 3 jeer ayaan guursaday, weligayna ma dhalin. Asaga keligiis ayaan haystaa, balse asagana wuxuu jiraa 32. Markastoo wuxuu dhahaa hooyo, maamo ayuu dhahaa, aad buu u jecel yahay. Markastoo uu dhahaa hooyo, waxaan soo xasuustaa markuu yaraa saan u sincin jiray. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa u toobad keenay dembiga aan sameyn jiray, aan wiilkan aan dulmiga aan ka geli jiray. Bini'aadamka dulmiga wuu galaa, balse kan ugu wanaagsan waa kiisa ka soo laabta. fadlan muuqaalkan ku cusub tahay like waana ku mahadsantihiin saa ugu xirantihiin kanaalada Darulkhayr Media iyo Naciim Studio. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.